wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maaxi Maxamed Ciise iyo maamulka degmada Baraawe waxay kormeer ku aadeen sida goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka. Wasiirka waxaa welinaya gudoomiyaha degmada Baraawe iyo taliyaha booliiska degmada Baraawe Cabdiqaadir Nadiir iyo xubno kale. Mas'uuliyiintu inta booqashada wateen waxay la kulmeen shaqaalo ka howlgalo isbitaalka weyn ee Baraawe. Shaqaalahan oo heegan u ah talaalida COVID-19 socdaalkooda waxay ku mareen gudaha magaalada Baraawe si ay ogaadaan xaaladda guud ee Baraawe. goobaha ay gaareen waxaa ka mid ahaa sida isbitaalka weyn ee Baraawe. halkaas waxay kala kulmeen mas'uuliyiinta degmada Baraawe. ugu horreyn kulankan waxaa ka hadlay gudoomiyaha caafimaadka Baraawe. gudoomiyaha degmada inta isag tartiib ku socdo wasaaradda taliyaha booliiska dhammaan bahda caafimaadka. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam maanta waa maalintii labaad ee noo bilaabay talaalkii COVID-19 dastuur. saad u jeedaan waxaan ka soo qayb galay gudoomiyihii iyo taliyaha booliiska hor qaateen dastuuriyada maanta nasiib u yeesheen inay qaataan iyo taliyaha booliiska degmada Baraawe Cabdiqaadir Nadiir oo kulankan ka hadlay. maanta waxaan noo bilownay oo weliba aniga maanta lagu bilaabay qaybtii labaad ee talaalka coronavirus. waxaan leenahay bulshada degmada Baraawe dadka hore u qaateen iyagana insha Allah kasoo qayb galeen ka qaateen kii labaad. waa mahadsantii bahda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo intii kaalin ka geysatay inuu soo gaaro qaybta labaad ee corona oo ay bulshadu aad ugu baahnayd. ayagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin. isbitaalkana waa mahadsanyihiin shaqaalaha isbitaalka oo iyagana si degdega markii ay soo gaareen hawshooda u bilaabay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu dambeyn kulankan waxaa soo xiray gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Cabdi Cumar Shafaana. Cabdiqaadir Maxamed Faqi TV ga Som TV Soomaaliya Baraawe gobolka Shabeellaha Hoose.